السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشنا قيمي قدرينتي نغا مدن كسو دوادا وروحي gudaha dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo idin kaga imaanayo studio Somali Channel ee magaalada Nairobi qodobada warkeena aad kaga bogan doontaan daawadayaal waxa ka mid noqonayo Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya marxuum Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo aas qaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho kulan loogu duceynayay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland oo markaasi ku eedeeyay xukuumadda Somaliland inay faragelin siyaasadeed ku hayso golaha wakiilada Somaliland odayaali waxgarad ka soo jeeda gobolka Sanaag oo soo dhaweeyay xukuumadda uu dhawaan soo dhisay madaxweynaha Puntland iyagoona beeniyay inaysan ku qanacsanayn xukuumadda Puntland wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Somaliland oo ka warbixiyay safarro uu ku tagay Jamhuuriyadda Djibouti isbitaal loogu talagalay in lagu xanaaneeyo dadka qaba cudurrada dhimirka oo laga hirgeliyay degmada Cadaado qodobada wararka dibadda aad ku maqli doontaan daawadayaal waxa ka mid noqonayo qaraxyada xixiga oo ka dhacay deegaanka Giza oo u dhow magaalada Qaahira ee caasimadda waddanka Masar iyo waliba waaxda qaabilsan ammaanka gudaha Mareykanka oo ka digay diyaaradaha duulimaadka oo waddanka Ruushka qodobada iyo kuwa kale oo aad u fara badan daawadayaal warkeena ayaad ku daawan doontaan haddii Allah uu qadaro balse marka horeysa aynu ku horeysiino qadar xayisiina